بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكيك مانتا وباق نبضيد وكو آدن dadka walaalaha ah ku dagaalamaya tuulada Fadhigaab ka tirsan degmada Ceelaf Weyn walaalayaal waxa soo galaya maalmo yar kadib bishii cibaadada raxmadda iyo dambi dhaafka ee Ramadaan waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay dambi dhaaf iyo naxariis bayna siiyo dhammaan dadka Soomaaliland iyo shucuubta islaamkaba waxaan ku bogaadinayaa dhammaantood soo galitaanka bisha barakaysan waxaan eebowga barayaa shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan shucuubta islaamka in Ilaahay ka nabadgeliyo oo baal mariyo aafada safmareenka COVID-19 iyo colaadahaba dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Fadhigaab ee ka tirsan degmada Ceelaf Weyn iyadoo Ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin ceeb iyo dhagxumo ku ahaa qaranka Soomaaliland gaar ahaanna dadka degmada Ceelaf Weyn waxaanu dhaawac iyo lafjab ku ahaa nabadii muddada dheer laga shaqeynayay ee la xidhay xaqiiqadii ma garan karo waxaan ku cabiro colaadda Ceelaf Weyn iyo deegaanka ku xeeran oo soo noqnoqonaysa ee aan ahayn inay tahay masiibo qaran waxa xaqiiqa in colaadaasi ilmihii ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo uu xoolo raac yahay sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto Ilaahay kama dhige dadka wada dhashay isu ehelka ah dad uma noola oo boqolaal ba kaga dhintay boqolaal way kaga dhaawacmeen kumanaan caruur waayeel iyo hooyooyina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaadaas ubadka iyo dhalinyarada halka ku nool waxay dhowrkii sanadood baranayeen dagaal colaad nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dibka Ceelaf Weyn kuma koobna intaas waxa uu barmadow oo ku taala ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku suntanayd Soomaaliland gudaheeda Sheekh iyo Shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada Ceelaf Weyn culimo salaadiin madax dhaqameed xukuumad ahsaab ganacsato iyo waxgarad aan goobta tagini oo wanaag ula tagini ma jiro dadaal waqti iyo xoolo badan baa ku baxay sidii nabadaas loo xidhi lahaa sidoo kale waxgarad ka iyo waayeelka beelaha halka ku diriraya ee wada dhashay orod iyo dadaal kuma hadhin waxa xasuusi noogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii August 2018 ay dhexdhexaadinta hogaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdillaahi Sheekh Ali Jawhar Sheekh Maxamed Cumar Dirir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weyneyd Soomaaliland oo afayeen ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deeg walaalayaal diinteena islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horeysiisay nabadgelyada waana tii ducadii rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ahayd Allahumma inna nas'aluka al-amna wal-iiman oo macnaheedu yahay in iimaanka laga horeysiiyay iimaanka sida awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaqadu ku dhaxmartay deegaanka Fadhigaab ay ka waantoobaan colaadda soo siitantay kuna saleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyay ee laga gaaray colaadda Ceelaf Weyn oo ugu dambeeyay shirkii Samatalis ee dhawaan Burco lagu soo gabagabeeyay madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed wayna heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas'uulka ah si loo hor keeno garsoorka iyo cadaaladda dhinacay doonaanba ha ka tirsanaadeen ugu dambayn waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga maanta weed murtiya oo ka mid ah gabayadii Hadraawi
sow nabadiisa haydaada oo sidata uun maaha sow godobi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha ilaahay hayna garasiiyo wanaagga